kulanti habboon daawade halkan waa Somali Inside Media wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn madaxweyne Donald Trump waxa uu bilaabay qorshe isbahaysiga NATO looga saarayo dalal waaweyn oo ay ka mid yihiin Spain iyo England haddaba qorshaha Trump ma yahay mid soconaya warbaahinta Reuters ama wakaaladda wararka ee Reuters waxay tabinaysaa war weyn oo ay ka soo xigatay mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka kuwooda loogu kalsoonida badan yahay waxaan mowduuceena ku dul istaagi doonaa Trump iyo waxa uu ku maagay isbahaysiga NATO iyo dalalka uu doonayo in uu markaasi si buuxda ugu reebo isbahaysigan ciidamada Pakistan ee Islamabad ayaa wali ku jira bando adag toddobaadkii labaad iyadoo Pakistan ay sugayso markaasi ama ay sugayso in ay martigeliso wada hadallo suuragal ah oo nabadeed oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran daaha gadaashiisuna ay ka taagan tahay Israel haddaba maxaa ka soconaya Islamabad wararkan soo dhacaya saacadda ka dambaysa imaanaya maxay yihiin sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa sida ay ugu soo rakali doonto wada hadal miro dhala oo ay markaasi dhex dhigto dalalkan iyo quwadahan sanadihii ugu dambeeyay soo dhawo saaxiib hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka oo subscribe soo dhaw muuqaalka like saar saaxiibadana u sii share gareey waa maasan tahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu qorsheynayaa inuu bilaabo ama uu doonayo inuu bilaabo qorshe isbahaysiga gaashaanbuurta naanta uu kaga jirayo Spain iyo sidoo kale Ingiriiska waa qorshe fog iyo yoolal uu muddo dheer ku raajoogay in dalalka qaar uu ka saaro xubinimada NATO sababtu maxay tahay inta oo kaliya ma aha xitaa waxa kale oo Trump uu doonayo inuu bedelo mowqifka Mareykanka uu ku taageero jasiiradaha markaasi dalalka ama jasiiradaha Falkland ee Ingiriiska kuwaas oo uu sheegay markaasi kuwaas oo sidoo kale ay sheegto Argentina ama ay sheegato in ay leedahay waxaana uu doonayaa Mareykanka inuu la safto dhinaca Argentina oo uu ku taageero in jasiiradahaas Argentina ay leedahay Trump soo kale wuxuu doonayaa in wax uu muuqdo cunaqabateyn iyo cagajugleynba uu saaro dalalka Spain iyo Ingiriiska waxaan leeyahay ninkan waa nin xagga dhimirka ka xanuunsanaya wuxuu u muuqanayaa nin howlo iyo badan waaweyn galaya Mareykanka dhowr jiha ayuu hadda dagaal kaga furan yahay NATO waa dalal midoobay oo aad ogtihiin awoodda ay leeyihiin iyo axadiyada dhexyaalo iyo danaha ka dhaxeeya Trump wuxuu doonayaa in si fudud waxaas oo dhan uu cardaadqada kaga dhigo ugu dambeyn ciidamada Pakistan ee ku sugan Islamabad ayaa wali ku jira bandow toddobaadkii labaad iyadoo Pakistan ay sugayso inay martigeliso wada hadallo suuragal ah oo nabadeed oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran kuwaas oo wali aan dhicin wadooyinka muhiimka ayaa xiran gaadiidka dadweynaha waa la joojiyay suuqyaduna waxay la dhacayaan yaraanta alaabta maadaama gaadiidka alaabta waday lagu xanibay banaanka magaalada oo aan la ogolayn wax soo gala iyo wax ka baxa magaalada Islamabad iyadoo oo wakaaladaha wararka ay ugu afdheer tahay Reuters ay sheegayso in Pakistan markaasi tallaabooyin ay u qaadayso suurtagalnimada inay jiraan wufuud sare oo Trump uu ka mid noqon karo toddobaadyada soo socda in ay booqan karaan Islamabad Pakistan waxay iska dhaadhicinaysaa baa la yiri riyo iyo rajo arag waxayna isleedahay madax adduunka oo si weyn loo ilaaliyo ayaa imaanaysa Islamabad maanta oo 24 Abriil ahayd ayay xogtan soo baxday waana maalin Jimco ah ayay ahayd dabcan caawa wargeysada ugu waaweyn dunida iyo kuwa ugu afka dheer ee sida weyn uga hadlaya dagaalada bariga dhexe iyo wararka la xiriira adduunweynaha oo dhan waxay si weyn markaasi u hadalhayaan suurtagalnimada ah in Trump uu yimaado magaalada Islamabad ee dalka Pakistan oo khatar uu ku wajihi karo si la rumaysan Trump waxa aad u doonaya Hezbollah Hamas Iran iyo xitaa quwado kale oo sirdoonkooda uu aad ugu raajoogo isla markaana uu qorsheynayo dhagaro uu u maleego ugu dambeyn mowduuceena waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska Wall Street Journal inay gudaha Mareykanka ka jirto cabsi ku aadan hoos u dhac ku yimaada kaydka hubka Mareykanka kadib dagaalkii Iran taasoo ka dhalan karta inuu ka faa'iideysto Shiinaha oo uu weeraro jasiiradda Taiwan sabab la xiriirta Mareykanka in uu ku adkeysanayo ama uu markaasi waqtigan la joogo uu ku adkeysanayo in uu difaacayo Taiwan oo ah markaasi
qayb ka mid ah dhul weynaha Shiinaha laakiin sheegata jamhuuriyad ka madax bannaan China. sarkaalkan sare oo la hadlay wargeyska Wall Street Journal waxa uu si cad u sheegay in Mareykanka uu markaasi si buuxda u taageersan yahay dhinaca Taiwan halka Shiinahana uu doonayo weerar toos ah markaasi in uu ku qaado. guud ahaan mawduuceena saaxib intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii aad channelkeena ku cusub tahay ku soo biir waa bar dhawaan gal ah oo aan ku soo gudbin doono wararka ugu waaweyn adduun weynaha iyo Soomaalida rukumo oo subscribe soo dhig muuqaalka like saar saaxiibadan u sii share gareeyo waan soo tahay